لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. My name is Kennedy Hiss, and inshallah today I'm going to be doing the condition of Shahada. And for the brothers and sisters that don't know what it means La ilaha illallah. So inshallah I can begin. It is not enough to utter the Shahada for it to be accepted by Allah. It is the key to the gate of Jannah, but in order for the key to work, it needs to have the right notches. The Shahada must meet the following conditions for it to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. 1. Knowledge. What is knowledge? Knowledge is knowing all things worshipped besides Allah are false. There is no God in worship in the truth except Allah. Allah, even if it be a prophet, a messenger, or even an angel, Allah deserves all types of worship, such as prayer, salah, supplication, dua, sacrificial slaughtering, and making oaths. 2. Certainty. The heart must be firmly certain of the meaning of the two Shahada. Allah the Almighty says, the believers are only those who have believed in Allah and His Messenger, and afterward doubt not and strive for the wealth of the cause of their lives. Those are the truthful. Surah Al-Hujurat. 3. Acceptance. One should accept the Shahada fully and not reject it. Allah Almighty says, children will say to them, La ilaha illallah, no deity is worshipped in the truth except Allah. They would puff themselves with pride. An example, they would deny what Allah would have said. Surah Al-Safat. 4. Submission. Obedience and acting upon what the Shahada necessitates. A person must do what Allah ordered and abstain from what He prohibited. Allah the Almighty says, and whoever submits to his face while he is muhsin, doer of good, then he has grasped the most trustworthy handhold, La ilaha illallah. wagaag daawadayaal wali waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii qalinjabinta ardaydu ay farbarashada ka qalinjabinayeen dabcan qaar quraanka ka qalinjabiyeen way jireen wiilkani waxa uu kamid yahay ardayda firfircoon ee wax ku barata dugsigan Ahmed bin Hanbal dabcan waxa uu kamid ahaa sida uu sheegay ardaydii sanadkii hore qalinjabisay haddana waxa uu kamid yahay howlwadeennada ee barnaamijkan ka shaqeynaya wagaag isaga ayaa haatan ila jooga magaciisana isaga ayaan weydiin doonaa magaca Kennedy Hiss. Kennedy Hiss waxaad iga warantaa farbarashada iyo sida aad ugu faraxsan tahay inaad dugsigan ka baratid farta. The Hagad was beautiful, mashallah, alhamdulillah. Before I came to Duxi, I learned Hagad from other Duxis. I used to go to different many Duxis because my mom wanted me to learn and never forget it. But when I learned Hagad, I would forget it. But when I came to Ahmed ibn Hanbal, I learned it in 2 months. But when I went to other Duxis, it took me 2 years. But when I learned my Hagad, I learned it and I know how to read the Kitab now. The Quran right now. Yeah. Alhamdulillah, mashallah. So I'm so happy for you inaad si fiican u taqaanid Hagada. Ilmaha Soomaaliyeed marka dugsiyada dhigta wax barta farta iyo quraanka baranaya maxaad kula talin lahayd maxaad u sheegi lahayd marka if the kids that don't who have trouble reading the Quran and the Hagad I would suggest from all other duxis
react to your duksi that you're in right now, then and if it's not good for you, ask your mother or your father to come to your ask to come to Ahmed ibn Hanbal, because wallahi it's better than the other duksi I ever been to. Okay, thank you so much. Adba maasanta. Yeah, I mean, jazakallahu khair. waa hagaagay haatanna waxaa dhinaca iga taagan cabdirasaaq cawiil oo sidaad u jeedaan wiil uu dhalay ayaa hor jooga dabcan ardada dugsiga u dhigata ayuu ka mid yahay iga waran bal marka meeqa caruur ayaa dugsigan ku dhigata wallahi alxamdulilah dugsigan waxay dhigtaa laba caruura waa nimco ilaahay baan odhan karaa anigu intii dugsigan aanu maaragtay caruurta geynay caruurtaydii isbeddel weyn baa ku dhacay oo xaggii maaragtay akhlaaqdoodii oo kortay aqoontoodii diinood oo maaragtay aad iyo aad u kobcday waa mid ilaahay loogu mahadnaqi karo maanta dhulkan la joogo yacni waxa weeye haddii laga helo jaanis noocan oo kale ah waxa weeye waa waxaan maaragtay la qaadan karin weeye waxaan la lumin karin weeye baan leeyahay waxaan odhan lahaa waalidiintu iyo u daymo la'aanin dugsiyadan oo kale ilmahooda wakhtigan la joogo iyo meeshan la joogo sidan oo kale looga faa'iidaysan lahaa lama garan karo jaanis noocan oo kale intuu jiri karo yacni dhulkan oo kale waxaan aad ugu baraarujin lahaa waalidiinta in ay ilmahooda aad iyo aad uga caawiyaan sidii ay guryaha homework uga soo caawin lahaayeen maxaa yeelay dugsiga halkan ka dhisan ee kan oo kale yahay dugsi Soomaaliya ka dhisan marka loo barbar dhigo yacni wuxuu ka dhigan yahay yacni saddex meelood marka loo dhigo meel ahaan ayuu uga dhacaa oo dugsi Soomaaliya ka dhisan waxa la tagi jiray caruurtu tagi jireen ugu yaraan 6 maalmood wiigi kan waa 2 maalmood oo kaliya taa macnaheedu waxa weeye 4 maalmood ee kale ee soo haray ilmihii in waalidku ku dadaalo oo uu guriga ka soo caawiyo ayaa aad iyo aad muhiim u ah waa hagaag daawadayaal caruurtan faraha badan ee Soomaaliyeed aad u jeedaan waxay ka mid yihiin mustaqbalka Soomaaliyeed ee wax ku barta waddankan Mareykanka waxaan rajaynaynaa in ay si wanaagsan u soo barbaaraan isla markaasina ay aad wax u bartaan magaca adeer magaca Anas adigana Ayub adigana adigana أنزل أوكي وايدي سو نقولنا أدينك هل مر ميو وضغادي كرتان أدينك لأن ألف باء تاء هل مر وضغادي كرتان ألف باء تاء أيه سيد ألف باء تاء جيم حاء ذال روز عشين سين صاد ضاد ضاد عين غين ذا قاف كاف لام ميم ما شاء الله أدبا ومهسنتين thank you very much good job أدبا ومهسنين واحد دعاء وآخرسان مجرتها هي دعاء دي آخرين مركورنا وقاعدة دين كدان الحمد لله الذي كساني هذا الضوء ورزقنيه من خير حول مني ولا قوة ما شاء الله أدين كان وحن ربا إن مقعدين إيش كتان مقعد أديك أدير نمارخ أديك شكري أديك منى أديك أنزل ما شاء الله أنزل هي دعاء كلامي آخرين كرتان صلاة دمرك اللي دكدو دعاء الآخرين ما تقانن هي كوري قاعدة أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام واتاي مركب مسقش الربع